dacawo ayaa weerar ku qaatay baalka loo yaqaano fursil waa kalluun noocyada ka mid ah badda ku jira oo cadceedsanaya. dagaalkii markay qaatay waraabe ayaa isaguna dusha kala socda oo halkaa ka fiirsanaya. waraabe wuxuu ku qoslayaa dacawadan u taagla ee la meeraysanaysa bahashayal. dagaal baa socday, dagaalkii wuxuu socdoba bahashu way isdifaacaysaa. dagaal baa dhexnay, dacawadii waxay isugu tagtay 3. waxay rabtaa inay bahashan dhulka dhigto. bahashuna waa isdifaacaysaa oo nafteeda inay badbaadiso ayay rabtaa, halka dacwadu ay ka doonayso kalluun fareesho ay saaka ku quraacato maadaama ay gaajoonayso xilli jiilaal lagu jiro. aakhirkii bahashii waa ka guulaysatay, waa ka farmaraysatay. dacwadina fashin ayay meeshii kala soo tagtay. waraabe ayaa iminka hawshiisii galay. waraabuhu waa ka awood badayay dacwada, isagu mana kaftame. markiiba wakhti iskama laba waraabihiiye madaxa ayuu bajiyey bahashii, waa kala tuuray. markiiba dacawadii oo iyaduna dusha ka daawanaysay ayaa markay aragtay waraabihii inuu guulaystay ku soo biirtay oo uu yidhi ciyaal baa tiina ma taqaanaa sida wax loo dilay, kaalii raashka wax ka cuna. waraabihi wuxuu ku casuumay goobtii dacwooyinkii oo fara badan oo yidhi kaalee baaqiga iga hadha wax ka cuna. waraabuhuna waxaa lagu tilmaamay inuu yahay xawayaan faxalaad oo haba yaraatee markuu wax cuno aan kelidii cunine, markuu neefka sidaa u dilo ayuu qaylo iyo qosol bilaabaa. waraaboo dhan baan isugu yeedhaa. daawadee haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsantay, haddii kalena nagu soo biirsi muuqaalada xiisaha badan leenalkan ku soo gudjira inaad qayb uga noqoto lana wadaaga saxaabtaada aad baad u mahadsan tahay.